ويلي غريب والقرطي بلا ويسي سقاي ولا ليال على ولا ويلي غريب والقرطي بلا ويسي سقاي ولا ليال على ولا ورسني وسن بج فرفرني تقول وافي واتو ولا ليال على ولا ورسني وسن بج فرفرني تقول وافي واتو ولا ليال على ولا وجير انقراني ودان سبقلي ولا اللي معافي مالي وجير انقراني ودان سبقلي ولا اللي معافي مالي قلب وتادو وسواس الله يمي ولا السماء أبدا ولا وجير انقراني ودان سبقلي ولا اللي معافي مالي وجير انقراني ودان سبقلي ولا اللي معافي مالي قلب وتادو وسواس الله يمي ولا السماء أبدا ولا Mangi wel shawayana ونال ديكو وينا wari iliya wayana وروي واكو وينا tamadi kalinya denis weisaya yana وليرمي تاسلالا ولا ليال أدوالا Mangi wel shawayana ونال ديكو وينا wari iliya wayana وروي واكو وينا tamadi kalinya denis weisaya yana وليرمي تاسلالا ولا ليال أدوالا ويسيلنا نبت وارتي ولا الجرمى والهون على نوكريا أدوادا سام ما دوينتا والقبض سنين واجب على دوا وليرمي تاسلالا ولا ليال أدوادا ويسيلنا نبت وارتي ولا الجرمى والهون على نوكريا أدوادا سام ما دوينتا والقبض سنين واجب على دوا وليرمي تاسلالا ولا ليال أدوادا واليرمي تاسوغادا
bismillaahi raxmaani raxiim fiirsadayaalkuna jeenaha ka dhowaada barnaamijka toddobaadkii KGS TV oo siin ku yahay magaalada Baydhabo Harunta gobolka Baay barnaamijka webowna qaado doone hadii Ilaahay awoodila qadara wafduus hogaamiyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo hadeere magaalada Baydhabo waxaana soo dhawaa magaalada Baydhabo ku furmo doona shirlun ku hadrow baarlamaanka Soomaaliya waribaanta badan shirkuusaya kala ku gurfay doona qaabka baarlamaanka dalka Soomaaliya soo wajahaya wariba magaalada Baydhabo hadeere gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Usmaan Jawaare iyo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo Puntland waa in mas'uuliyiintu hana fudisha duwan hogaamiyeen wariba lahan galbi arunta madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya oo ka dhigi doonto shirka isla mar ahaantaasina lan ku aran soo doona baarlamaanka dalka Soomaaliya wariban ku horantii meel ku hadlay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Abdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo mas'uuliyiinta intaas kula daranjay ku hadleen Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wafuudda maanta lagu soo booqatay magaalada Baydhabo oo hadda tan garabkeega taagan yahay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland sidoo kalena ay ka mid yihiin gudoomiyayaasha iyo gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanada dowlad goboleedyada kale oo sida la socotaan saaki diyaaradda ugu horeysay ka soo degay waxaa sharaf inoo ah gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shacabka reer Baydhabo inaan gacmo furan ku soo dhaweyno saad la socotaan waxaan ku ballansaneen in magaalada Baydhabo lagu qabto shirkii wada tashiga ahaa ee gudoonada golayaasha sharci dejinta dowladda Soomaaliya من هير فدرال إلا يهوي دولة الجبلات بس الله سبحانه مدشان مدل هرو سو جرتيا صدق فردي هورنا سواق بسطة مركب فردي جدي أفراد وعيا وأنا مركب جوري مركب مالك بحث عن عاصمته لو قبته وحنا نصيب ويا المجال بيدبو إن شاء الله وحنا جينا كل ما ذكر الرسول على مركب إن دولة الجبلات ده أيضا عاصمته وبربلة تيجي دوره صدق هذه كلنا هراء وحوا لو قبته مجال المقدسة مركب شركة سوى تشجع مدشاس جولياش شرع الجنت ku midaysan yihiin isugu imaadeen shirkaas oo ku saabsan kul ajendayaashiisna bari waxa laga hadli doonaa heli doonta marka mudan gudoomiye soo dhawaa gudoonada kale waa ka cudur daaranayna waxa way salaad waxay xilliga salaadii ku jiraan marka waa cali gacal waa kan waa soo gaaray marka insha Allah waa in ku soo dhaweynana gudoomiye cali gacal gudoomiye Axmed Cali Xaashim marka insha Allah ina ayagana shirka wuxuu noo furmi doonaa bari oo bisha 26 ay tahay 27 iyo 28 saddex maalmood inuu soo socon doona marka insha Allah maalinka 29 kan waa soo xiri doona ilaa karaali noqdo wafdiga hordhaca ahaa waxaan ku soo xigtay diyaaradii kale ayadana soo wada gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalka Professor Maxamed Usmaan Jawaare iyo wafdi la socday gaar soo socda marka gudoomiyaha soo dhawaada idinkana marka kelmadii halkaan idinkaga adeerana markaas aad ka tiraahdaa ما يبقى واحد باقي شل هذا ما جرته شركة وعشان معلومات واي أنا قلت لك قال لي مالك الكواد وحي مالك فود يسود لجاية صدق معلومات وفرق ونص عندنا مالك قدام يستقال لما تكن مالك أنا بحين دونه وفود ده إذا كذا على نقطة دي إنسان أيوة إنسان سيجي على إنسان مجرد بيدنا بينه كوسي نجادا نسيج جوجان مثل مالك استقال لما تكن واحد باقي مالك شركة سيدا أجندة سيدو ينورش على رواتنا إيشان وصل دوينتي دجنتي مرتدى بري ولا حلوات أنا سير اسمه يشاركوا في من دون إن شاء الله. ما أنت تهاي بيشان عشان وقتي طلعنا وقتي أصوات كون دولة دمية شديد ندي يحمل بعضنا أيام محمد يعني مقالة بيدبو sida ku talagalku yahayna waxa weeye berrito inuu shir nooga furno dowlad goboleedyada iyo maamulka sare ee federaalka gudoomiyaha Jawaare hogaaminaya marka aad iyo aad waxa farxad weyn oo ah dowladda koonfur galbeed shacabkeeda iyo dhammaan waxgaradkeeda soo dhaweyntii fiicneed ee noo sameeyeen garoonka iyo qasriga madaxtooyada waxaan aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntaas waa arrin Soomaalida lagu yaqaano ah Soomaalidu martasoorka iyo soo dhaweynta aad bay u fiicnaan jireen waxaan kaloo ka rajeynaynaa wax naga khaldamay oo Soomaali haddaan nahay jira oo ah xagga amniga Soomaalidu way ku fiicnaan jirtay bariyahan dambe laga waxaad moodaa waxyaabo meelo kale ka jiri jireen oo noo soo gudbiyey
waxaan aad iyo aad u rajaynayaa intii burburka Soomaalida dowladda dhexe la waayay waa markii labaad aan diyaarad ku imaado Baydhabo Kismaayona mar baan ku tegey Muqdishona dhowr jeer baan ku tegey waxaan rajaynayaa inaan mararka dambe aan dhulka ku iman doono anuu raggii xagga waqooyi ka jiraan ahaa barkii Soomaaliya jirtay gaari baan ku iman jirnay Kismaayaan ku tegi jirnay Baydhabo baan ku tegi jirnay laamiga dheer oo ilaa iyo bari iyo waqooyi galoo tegi jirnay insha Allah waxaan rajaynayaa jiilkeena cusub wixii aan soo aragnay in Ilaahay dikra iyo tusi doono barasho bilaasha caafimaad bilaasha iyo nabadgelyo meel walba geed hoosteeda seexanaysa way noo soo noqonaysaa jiilka cusub waxaan ka rajaynayaa inay iyagu isku wacyigeliyaan waxa ka jira Soomaaliya inay tahay wax iyagoo daran lagu burburinayo dhallaanka dhalinyarada hooyooyinka oo agoon noqonaya waxaan aad iyo aad u rajaynayaa kulankaygana waxa weeye sida guddoomiyuhu sheegay kulan soo socday 3 kulan oo ka horeeya Muqdisho lagu qabtay kanna maanta aan Baydhabo ku qabanayno 6 noo furmaya waxaa xigi doona insha Allah kuwa ka dambeeya saas u soconaysa waana waxtarka iyo wada shaqaynta baarlamaanada heer federaal iyo heer dowladeed wuu noo soconayaa waan wadeennaa waa arrin la doonayay bulshada isku dhex gasho idinkuna aad ku aragtaan inaad marna Garowe ka degtaan marna Kismaayo marna Galmudug ka degtaan aad aragtaan dadkiina Soomaaliyeed walaalihiina Soomaaliyeed inkastoo hadda aan ogahay shacabkana aan raaxineen waxa kala xiran oo la qiyaameynayo intii siyaasadda ku jirta marka iyadana waxaan rajaynayaa inaan socono oo xiriir wanaagsan iyo wada hadal Soomaalina ku soo dabaalno leesuna tanaasulo aad baa mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم runtii marka ugu horeysa waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka koonfur galbeed iyo shacabkooda iyo meediyahaba sidii diiraneed hagar la-aanta aheed ee noola soo dhaweeyey waqtigaan oo qoraxda ay jirto runtii aadaan idinkugu mahad celinaa dhammaantiin Baydhabo waa Baydhabo Janaay dhulka meesha ugu qabo waaye sida aan ka aaminsannahay waqtiyo hore dadka qaar ugu dambeysay dhalinyaradiina soo barbaarama aan ahayn 70kii ay ugu dambeysay anigoo ilmo ah waagii dowladda Maxamed Siyaad Barre Oktoobar markii la gaaro 21 Oktoobar oo dhalinyarada xaabi jiray marka dhalinyarada soo xaabiya ku jira isha Baydhabo leeyahay marka halkaas aan muddo joogay intan waa joogay runtii aadaan maartay kor ahaan ugu warhayaa oo aadaan ugu mahad celinaa guud ahaan midda kale arrimahan hadda maanta uu yimiday runtii waa shirar oo sida hadda guddoomiyaasha ay u sheegeen hore u socon jiray kuwaasoo lagaga hadli jiray baarlamaanada iyo maaragtay isdhexgalka baarlamaanka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo waxyaabaha jira oo dhibaatooyinka jira oo baarlamaanadu ay iska kaashadaan ay muhiim tahay guddoomiyaashu isaga imaan jireen waana kii afraad oo hadda maaragtay socda kii hadda ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu go'aansanay in sanadkiiba 2 jeer la qabto oo marna lagu qabto dowlad goboleedyada marna lagu qabto magaalada Muqdisho runtii kii ayuu ka jawaabayay maadaama doorasho iyo howlo kale ay soo dhex galeen ayaa waxay soo gaartay bisha December ee la qabto marka reer Baydhabo waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin waan idin soo dhaweynaynaa runtii waana ku faraxsanahay sida diiran ee maaragtay hagar la'aanta ay ku jirto naloo soo dhaweeyey shacabkiina iyo madaxdiinaba waana idin mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inaad idinkuna adinkoo socotaan aad gobollada kale dowladada kale aad noogu imaan doontaan aadaan u rajaynayaa aad iyo aad u mahadsantihiin shirkuna sida la sheegay berito oo 26 ah ayuu inoo furmi doonaa haddii aan la yidhaahdo waxyaabaha lagaga hadli doonana waa idiin sheegnay wixii hore looga soo hadli jiray shirarkii hore ayaa halkeedii laga sii wadaa waa isfaham keliya oo maaragtay arrimo siyaasadeed oo maaragtay kuma ay jiraan wax siyaasadeed oo laga hadlayo siyaasad lagu qarfaynayo ma aha laakiin waa danaha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanada waaye sidaa darteed waxaan maaragtay u mahad celinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyada iyo madaxdeeda shacabkeeda aad iyo aad u mahadsantihiin kabacdina ajandaha waa la socon doontaan meediyaha waa hogaamiyaha gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaalka maamul goboleedyada ee gudoomiyaalka baarlamaanka iyo ku-xigeenadii oo dhamaantii oo yaxdhawaayana eedan in farxad galiyaasa magaaladan ku meel caasimada ku meel gaarka ee Baydhabo inay unu geeka ka dhawaayna
maamul goboleedyada guddoomiyaasha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya insha Allah ta'ala ana hadawaayo iyo furo ku shilaysa hasiin suuli eediyana ka faraxsanaynayo qoyan ilaahay idin sheeg walaa ku wada hadalaa ku qorshe guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda goboleedka koonfur galbeed insha Allah uu sheego doon eediyada si kama nagaan walaalana hadawaada dhamaantiin hadawaada lana eediyada ma sabti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كلي واحد ديار روتين أنا مسينا الحين كسابسن الجدة المفروض هو جامعنا يقدون قراء شعب دولة الفدرال يقدون هذا قراء شعب الجنة دولة البلدية. روتي معناته وفرحت وين إن مقالة بيدبا انتاس المفروض أي جماعان وهو يعني يقدون قراء شعب يقدون هذا قراء شعب الجنة. waxaana loo ballansanaa in halkan lagu qabto kulankii golaha golayaasha sharci dejinta ku kulmaya kulanka maanta baydhabo beri noogu furmi doono galabta diyaargarayntiisa ajandaha uu bilaabmi doono waxaa ka horreeyay 3 kulan oo hore ay guddoonadu hore ugu yeesheen magaalada muqdisho kulankan waa kii afraad ay yeesheen guddoonadu wuxuuna noqonayaa kii ugu horeeyay marka meel ka baxsan magaalada muqdisho lagu qabto marka insha Allah ajandihii iyo qodobada lagu hadli doono oo faahfaahsan beri baad heli doontaa ilaa ka raali noqdo laakiin waxaan rabay inaan dhiibo microfonka ee guddoomiyaha ku-xigeenka golaha shacabka si isagana marka wixii tafaasiila ku saabsan oo isagana marka noo sii madaxweynaha ahna wasiirka amniga dowladda iyo baarlamaanka shacabka reer koonfur galbeed iyo shacabka degan caasimada kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed ee baydhabo waxaa farxad aad iyo aad u weyn noo ah sida diiran loo soo dhaweeyey oo aan aad iyo aad runtii raalli uga nahay una faraxsan nahay dhiirigelinaysana waxa weeye isu socodka iyo isku furnaanshiyaha shucuubta Soomaaliyeed meel walbay joogto maanta baydhabo waxaa marti ku ah guddoonadii iyo maamuladii baarlamaanada ama heer federaal oo ah golaha shacabka ama ha ahaatee heer dowlad goboleed dhammaantood ayaa xaadir ku ah magaalada baydhabo waxa weeye kulanku sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waa waxa weeye kalfadhigii afraad weeyaan oo ay yeelanayaan waxa weeye guddoonada waa la socotaan oo hadda mar walbaba baarlamaan cusub baa lagu soo kordhiyey golo cusub baa lagu soo kordhiyey waxa weeye golaha shacabka iyo golaha wakiilada Puntland kaliya ayaa waqti jiray waxa weeye intaasoo dowlad goboleed baa noo soo kordhay oo baarlamaana leh oo xukuumada leh oo waxa weeye wax walba leh mid walbaaba intuusan iman oo aan la dhisin ayaa loo sii diyaargaroobay oo ay guddoomiyaasha iyo baarlamaanada kale u sii diyaargaroobayeen inuu baarlamaanka ku soo kordhi doono oo wax loo sii qorsheynayay oo meel loo sii xaarxaarayay marka uu baarlamaankaas cusub yimaado oo guddoon cusub soo doortana waxaa lagu soo dhaweynayay maaragtay madashana lagu soo dhaweynayay
warsangi wesan bridge furfurungi Gogol waafe waato walaaliyaan hadhawaada warsangi wesan bridge furfurungi Gogol waafe waato walaaliyaan hadhawaada Wajjir ungurani wedan subugle walaalnima caafimaadle wajjir ungurani wedan subugle walaalnima caafimaadle qalbi wetano waswas allahayni walaal samaa aga dhawaada wajjir ungurani wedan subugle walaalnima caafimaadle wajjir ungurani wedan subugle walaalnima caafimaadle qalbi wetano waswas allahayni walaal samaa aga dhawaada mangi welsha waena wadnaada dhiigo warena wari iliya waena warkooyi waako warena tamadi kalinyadenis weysayayayana walyarmee taasagaada walaaliyaan hadhawaada mangi welsha waena wadnaada dhiigo warena wari iliya waena warkooyi waako warena tamadi kalinyadenis weysayayayana walyarmee taasagaada walaaliyaan hadhawaada waysiilana nabad waarti walaal jirama walhuun alla noo koriya hadhawaada islamnimada wiilka walku qobsane waajib alaadaba walyarmee taasagaada walaaliyaan hadhawaada waysiilana nabad waarti walaal jirama walhuun alla noo koriya hadhawaada islamnimada wiilka walku qobsane waajib alaadaba walyarmee taasagaada walaaliyaan hadhawaada 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 maalmaha diray waliba dhifilaha inta magaalada Baydhabo ku furmay lan ku hadlow aayo baarlamaanka dalka Soomaaliya barnaamijka todobaadkii KJS TV way bantaasiin ku jeediyaan Faysal Hussein
inta barnaamijka galamadan hawdreedan kulmaan saasi amaana Allah wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada